iscadayska ayaa ah wax bulshada Soomaaliyeed si aad ugu soo badanaya isticmaalkiisa sanadihii dambe. Daawooyinka la isku cadeeya ayaa ah kuwa u daran qofka caafimaadkiisa waxaan ku jira kiimikooyin sida mercury iyo kuwa kale. Waxyaabaha la isku cadeeya waxaa ka mid ah kareemyada ay marsadaan haweenka ayna ugu talgaleen in ay muuqa jirkooda ku bedelaan kuna cadeeyaan. Baaritaano la sameeyay ayaa lagu ogaaday in daawooyinka ay isticmaalaan dumarka laga helay kiimikada mercury. sanadkii 2014 baaritaano laga sameeyay dalka Mareykanka ayaa lagu ogaaday in daawooyinka la isku cadeeyo laguna iibiyo qaabka online-ka ah ee laga iibsado dalka Mareykanka gudihiisa ay ku jireen 12% kiimikada mercury. haddii dawlad sida Mareykanka oo kala ah kuwaas oo la kontaroolo badqabka daawooyinkooda laga helay kiimika intaas la eg, Soomaaliya meeqa ayaa laga heli karaa? waa su'aal isweydiin mudan. awoodda difaaca jirka haddii uu qofkan awoodda difaaca jirka uu haysto hadduu qofkani horumar ku sameeyo wuxuu jirkiisa ka saarayaa wax kasta oo weerar ku ah ama dhibaateyn kara. qofkina wuxuu noqonayaa qof qurux badan, xubnaha jirka ayuu ka mid yahay, maqaarka unugyada jirka ayuu ka mid yahay. maqaarkana wuxuu qurux badnaadaa marka jirka intiisa kale markuu qurux badan yahay. wallaahi horta dhibanuhu mar walbo ka orod badan. marka hore xarago iyo qurux haday ahayd ujeedadu marka la waayo qofka uu dareemayaa waxa ku dhacaysa kalsooni daro. qofka mar haday kalsooni daro ku dhacdana wax kasta oo jirkiisa uu ku heli karo mar kale uu ku hanan karo uu raadiyaa oo wuxuu isku dayayaa inuu helo sidoo mar un dabiici u noqon lahaa. dad baa waxa laga hayaa mar hadaan maqaarkaygii isagoo madow oo caafimaad qaba leh hadaa helo yani waa nasiib badnaan lahaa. marka qofka kasta oo noo yimaado annaga inaan helno xog ah wuxuu dhibaatada hor meeshii ka soo gaartay ma cunto xumi ka soo gaadhay nafaqo daro waxaan skinkiisa sababta uu qurux badnaan laayay maxay tahay isaga dhaawacay oo waxyaabo la isku qurxiyo marsaday wuxuu noqday allergic uu noqday waxba maaragtay resistant uu ku noqday oo uu marsanay ama waxyaabo kale ama bay'ada ama deegaankiisa. waxaan ku dhashay magaalo la yiraahdo Warshax oo gobolka Shabeellaha dhinac ka mid ah oo Hirshabeelle magaalo xeebeeda. dadka xeebeedkana waa iska taqaanaa xeebta iyo qorraxda aad isugu dhow yihiin kuleel zaa'id waay. marka kuleelka zaa'idka ah haarahan iyo ugu reereeba ma fahan iyo madmadowgan iyo skinka adiga isbedel weyn ka muuqda. laakiin maalinka aan soo daarmi iimaday wax badan aan rajeehay inaan muddo aan arko amba aan ku riyohay wajigaaga ummadda wajiyadeeda normalka caadiga ah wajigeedii face-kooda quruxda badnaay wataan ummadan haysato say u haysato goor ma arki doontaan oo isla ilaahay sudaarmo ihaleeshii waa imiday bacda shaqo kadib waa u jeedaa adaaba dareemi karaba. ogaa wuxuu ahaa madow yar oo meelahan zaa'id ay u madow yihiin meelaha la laabatada leh intana miin sida qof duqoobay amba qof aad u daalan ma fahanti walaga dareemay inuu daal iga muuqdo in daadiyadiina gaarin waqtigeeri inaan sii degdegay laakiin hadda oo hoosa u dhac laabka mujida meeshan iyo inta mujida ishaan hoosteeda iyo baarkan kore iyo waxay aheeday inaan ookiyaalo leh ku socdo maane hatta kuma dhiiri jirin in caadi u socdo sababta daal fara badan iyo miis fara badan saarneed. laakiin hadda alxamdulillah isticmaalka dawooyinka la isku cadeeya ayaa dhibaato ku ah caafimaadka qofka. waxyaabaha laga dhaxlo isticmaalka dawooyinka waxaa ka mid ah cudurrada ku dhaca maskaxda sida depression iyo anxiety iyo jirooyin kale oo la mid ah oo ku dhaca maskaxda. waxay kaloo sunta ku jirta daawooyinka keentaa in qofka jirkiisa aad u daciifo iyo in qofka u fududaato in infectionska ku dhacaan. sidoo kale qofka ma xamili karo wax kuleel ah sida qoraxda ama marka uu cunto karinayo. ku dhawaad 60% dumarka Afrikaanka ayaa isticmaala dawooyinka la isku cadeeyo. waxaa jira dalal Afrikaan ah kuwaas oo ka mamnuucay dalkooda dawooyinka ay ku jiraan kiimikada mercury. waxaa dalalkaas ka mid ah South Africa, Rwanda iyo Ghana. hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa marar badan ka digtay kiimikada ay ku jiraan dawooyinka la isku cadeeyo ee ah mercury. sanadkii 2020 magaalada Minamata ee dalka Japan ayaa lagu qabtay shir looga hadlayay yareynta iyo joojinta soo saarka waxyaabaha ay ku jiraan kiimikada mercury oo ay ka mid yihiin waxyaabaha la isku cadeeyo. ku dhawaad 90 dal ayaa ka qayb galay shirkaas waana shirkii ugu horeeyay ee arrin noocaas looga hadlo. iscadeyntu waa doorasho qofeed laakiin wuxuu dib ku yahay caafimaadkaaga. haddii aad rabtid inaad isticmaashid waxyaabo la xiriira maqaarka la xiriir dhaqaatiirta maqaarka iyo kuwa aqoonta u leh si aad uga badbaado dhibaatada caafimaad ee ka soo wajihi karta.